kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee sheekadii ma waxaan u dhintay jacaylkii nagaad oo habeen kasta oo axad ah ka daawataan channelkeena aayaha nolosha TV fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar channelkeena aayaha nolosha TV si aad u daawato sheekooyin musalsal ah iyo qisooyin jacayl oo dhab ah qaybtii labaad ee sheekadu waxay inoo maraysay Filsan oo ahayd gabar ay Cabdullaahi isku fiican yihiin oo dareentay jacaylka gubaya Cabdullaahi una ballan qaaday inay caawin doonto maadaama ay nagaad oo ah gabadha uu jecel yahay Cabdullaahi is yaqaanaan waxayna ku ballameen inay Filsan u tagto nagaad una sheegto in Cabdullaahi jacaylkeeda la liito arintana Cabdullaahi fursad ayuu u arkayay maadaama uusan ku dhiiran karin inuu inta hor fadhiista nagaad ku yiraahdo waan ku jeclahay wuxuu raadinayay qof haa iyo maya mid uun uga keenta nagaad haddaba 3 maalmood kadib ayay Filsan ku warcelisay Cabdullaahi orod oo inanta u badheed ayay Filsan ku tiri Cabdullaahi maxay ku tiri maxaad ku tiri sidee u tiri iyo weydiimo uu cid uga jawaabto u cilqabay ayuu ku boobay Cabdullaahi Filsan waxay ku tiri Filsan waxaan weydiiyay nagaad maxaad inanka ku jecel isu guursan weydeen inkasta oo hadalka ay ka yara warwareegtay haddana adigu si toos ah ugu tag oo u badheed ayaan ku odhan lahaa oo u bandhigay inanta jacaylkaaga toos ugu badheed ah inantu miyay waalatay haddii aan toos ugu badheedo soo iyana toos iigu badheeri mayso ayuu hoosta iska yidhi Cabdullaahi kolkaasuu ugu jawaabay waa hagaag waan isku dayayaa in aan su'aalo kala dul dhaco bilayse diiday orod oo naagta indhaha ku cadee oo ma isguursanaa ku dheh ayay si kaftan iyo run ku cadeen isugu jirta ugu tiri Filsan Cabdullaahi tabtii Filsan kula talisay ayuu ku dhiiraday fursad uu nagaad ku hor fadhiisto ayuu sugayaa uun kaliya maalin ay baabuur ku wada jireen ayuu is yidhi u sheeg weydii ku day kuma sadhicine ee mamadal wax la isku weydiiyaba ayuu is yidhi mooyi wuxuu la warwareego hadalka oo kolba dibnaha caaradooda dib uga celiyo maalin dambe ayay hotel cunno macaan u kaxaysay nagaad Cabdullaahi hase ahaatee waxa ayaan daro ahayd in maalintaas arinka guurka iyo wixii uu ka odhan lahaa maskaxdiisaba ay ka meermeen aad bay u faraxsaneed maalinka nagaad isaguna farxadeedaas ayuunbuu la wadaagay qosol iyo kaftan aan dhammaanayn ayay isla qaadaa dhigeen mar dambe ayay iyadu sheekadii arrimo muhiim ah oo uu guurku ka mid yahay ku soo duuday waxaa la soo gaadhay waqtigii aad guursan lahayd ayay nagaad ku tiri Cabdullaahi waxa aad u baahan tahay gabadh ku dhaqda oo sida Amran oo kale raaliyo ah ayay u sii raacisay Amran waa gabar ay Cabdullaahi ilma adeera yihiin oo ay iyadana is yaqaanaan waa qof xilo janno ah waa haweeney mid loo dhigaa ayan jirin way og tahay nagaad inuu Amran ixtiraam iyo galgacal dadnimo oo dheeraad ah u hayo Cabdullaahi meeshase ay Amran oo kale ku og tahay uma aysan sheegin inay iyadu diiradiisa saaran iska duwayso ayuunbuu u qaatay waan gartay ayuu yiri Cabdullaahi oo madaxa salaaxanaya una eg sidii tuug waaya araga oo la qabtay runtii nin wanaagsan baa tahay waxa aad qabanayso anigu garan maayo habluhu way badan yihiin meel walba way joogaan ayay sheeko dheer ku soo xidhay nagaad mar kali ah ayuunbuu soo baraarugo Cabdullaahi alaylahe fursadan ka faa'iideyso ayaa ku soo dhacday sheekadii isaga iyo Filsan in badan ay isla qaadaa dhigeen ayuu soo xasuustay kolkaasuu isaga oo wadnuhu fowdaas hayo ku yidhi maxaad adigu hablaha gayaanka ah isaga reebaysaa ma aniga ayay 2 jeer tiri nagaad waxa aan rajaynayaa in aanad walaaltinimadii aan kuu muujiyey qalad ka fahmin malaha aniga ayaa si xun wax kuugu muujiyey inagu dad isweydiin kara arrimahaas manihin inagu dad haa iyo maya ay dhex mari karto manihin ayay sidii qof qabar ku soo degay ugu muusanawday nagaad xajiso aaggaaga oo yaan lagula fuqin bal ku day inaad hore u sii ruqaansan karto ayuu si hoose isku yidhi Cabdullaahi oo difaacanaya su'aashiisii hore waayo maxaad sidaas ugu hadlaysaa ayuu yidhi miyaynaan dad gayaan ah ahayn
war anigu sheekooyinkaas gaboobay ee gayaanka iyo shuqul Soomaaliga ah ma aaminsani ardaadhig iyo oday loo tago iyo arimahaas ma aqaan in aan dhinto oo naftu iga baxdo ayaan ka doorbidayaa waxan aad i weydiinayso ayay si qiiro leh u tiri Nagaad waaw waa go'aan adag ayuu yiri isaga oo dhidid waaweyni ka soo daatay wuxuu dhibay ee meesha ka dhacay ee aan ahayn ma ku guursadaa oo waliba meel fog uu uga soo wareegay ayuu garan waayay raashinkii uu meesha ka cunay iyo jirkiisii naxay marna carooday marna baqay oo kul iyo tamar isu bedelay ayaa xididada dhex qaaday oo degdeg uga baxay gaajo iyo haraad ayuu dareemay biyo qabow ayuu kolba afka ku boobaa iyaga oo wali wada hadlaya ayay hoteelkii isaga baxeen oo fuuleen baabuurkeedii Nagaad oo dareensaneed isbeddelka muuqaal ee ka muuqda Cabdullaahi ayaa weydiisay xaaladaada soo ma wacna markay in yar socdeen ha xaaladaydu waa okay ayuu si dirqa ah ugu jawaabay Cabdullaahi hadal badan oo kale uma kala bixine gurigiisii hortiisa ayay ku tuurtay isagoo luudaya sidii qof bukaan ah ayuu gurigiisii yimid habeenkaas nidar wuxuu ku galay in uusan Nagaad dambe wajigeeda fadhiisan juuq u oran meel ay ka dhowdahayna uusan badtagin muusan seexan habeenka hadba dhinac ayuu isu rogayay ilaa waagii uu bariyay shaqadiisii ayuu u kalahay subaxii isagoo indhihiisa la moodo kabadhiig ah galabtii markuu shaqadii ka soo rawaxay ayuu damcay bal inuu Nagaad waco oo uusan maalintii oo dhan maqlin maba ahan ninkii xalay go'aanka ka qaatay wuxuu waa jacayl miyuu ka maarmi karayaa ruuxa dooqa loo suro markuu taleefankiisii gacanta soo qabsaday ayuu arkay calaamad fariin qoraaleed ah oo ku taagan taleefankiisa mise Nagaad ayay baka timid kolkaasuu durba furay hase ahaatee waxa ku qornaa un kaliya erayga maya wuxuu u qaatay inay sheekadii xalay dhacday weli daba socoto wuxuu isweydiiyay hal adka qofku maxay ahayd isagoo ka fakaraya inuu taleefanka kula hadlo haddana bal horta sug ayuu isyiri oo fariimihii taleefankaaga aad ka dirtay bal eeg yaab iyo amakaag bay ku noqotay kolkuu arkay hees uu xalay saqdhex Nagaad u qoray oo erayadeeda ay ka mid ahaayeen naftan ku ogolee kuu abaalsidee kuu abaydinka ee kugu indhala u shamaad u qaban naftan ku ogolee naftan ku ogolee ma waxaan u dhintay jacaylkii Nagaad waa sheeko jacayl oo qalbigaaga dhaqaajinaysa waa tabintii Nuur Shariif Shaacir waxaana qalinka u qaatay abwaan Cabdullaahi Cawad haddaba si aad uga bogato waayihii jacayl ee Nagaad iyo dibanahan uu caalamku ka heshay subscribe sar channelkeena Aayaha Nolosha TV lana soco habeen kasta oo ahad ah qayb kamid ah sheekada